بسم الله الرحمن الرحيم وأنيقو عبد الرحمن oo idiin soo gudbinaya 8 xaqiiqo oo ku saabsan magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. Muuqaal kooban oo World Economic baraha bulshada ku sii daayay ayaa lagu sheegay 8 xaqiiqo oo la yaab leh oo ku saabsan magaalada Beijing ee magaala madaxda dalka Shiinaha ay leedahay. xaqiiqooyinkaas cajiibka ah ayaa isugu jira kuwo dhaqaalaha la xiriira iyo kuwa dadweynaha ku nool magaaladaas la xiriira. xaqiiqada koowaad, qiimaha hantida guurtada iyo maguurtadu waxay kordheen 22% sanadkii 2016, waana sare u kac xawaaro badan ku socda. xaqiiqada labaad, dadka ku nool magaalada Beijing waa 22.7 milyan oo qof. waa tiro aad u badan marka loo eego dhammaan magaalooyinka Soomaalidu ku nooshay oo dhan. ama Soomaalida oo dhan marka la isku wada geeyo ayay ka badan tahay dadka ku nool magaaladaas oo kaliya. hase ahaatee, ma aha magaalada ugu dadka badan dalka Shiinaha, oo Shanghai ayaa ka badan, waana 24.3 milyan oo qof ayaa ku nool magaaladaas. xaqiiqada saddexaad, Beijing gaaska dabiiciga ah ayaa loo isticmaalaa korontada, waxaana dhowaan la xidhay shirkaddii ugu dambeysay ee kuwalka ka dhalin jirtay korontada. tallaabadaas waxaa loo qaaday si ay u yaraato amba sida ay u yaraadaan hawo wasaqaynta, oo waxaynu ognahay dalka Shiinaha ama magaalada Beijing inay tahay magaalada ugu hawo wasaqaysiga badan marka loo eego caalamka magaalooyinka ku yaala. xaqiiqada afraad, 70,000 oo ka mid ah tagaasida ama gawaadhida magaalada ayaa la dhigay taagaas korontadu ku shaqayso si ay wasaqda uga ilaaliyaan deegaanka iyo hawadaba. xaqiiqada shanaad, hantida oo qaali ah awgeed, dad badan oo ku nool magaalada Beijing ayaa 9 saacadood u safra shaqooyin maalintiiba. xaqiiqada lixaad, Beijing waa magaalada ugu sarreysa xagga qiimaha kiraynta guryaha, gawaadhida iyo wixii la mid ah. celceliska kirayntu waxa ay 1.2 ka sarreysaa celceliska mushaharka shaqaalaha. xaqiiqada toddobaad, garoonka diyaaradaha ee magaalada Beijing waa garoonka labaad ee ugu mashquulka badan dunida. xaqiiqada sideedaad, sanadka 2022 magaalada Beijing waxay noqon doontaa magaalada kaliya ee martigelisay ciyaaraha Olombigada labada xilli ee xagaaga iyo jiilaaga qoraxeedka. waxaan ka soo xigtay 8 xaqiiqo aan idiin sheegay World Economic Forum.